oo dhinacyada masalan horumarinta adeega xajka, dhinaca sicirka oo hadda aad arkayseen sida uu isu soo dhimay iyo lacagaha malaayiinta almost 10 milyan xataa mar ku dhawaatay oo dadka Soomaaliyeed jeebkooda dib loogu celiyay iyo guusha weyn oo runtii ahayd in ay la reward gareeyay ama jaa'izo la siiyey markii la tartamay dowladaha Soomaaliya inay kaalin fiican ka gashay kaalinta afraad oo aan fududayn intaasoo dowladood oo Soomaaliya ka horumarsan ka nidaamsan ka xoog badan ayaa aynu ka galnay kaalinta afraad. Marka waxay ku tusinaysaa inay guul fiican in la gaadhay oo aan wanaagsannahay. iyadoo guushaasi jirto haddana dee caqabaduhu ma yarayn sida la sheegay runtii. markii aan nimid waxyaabaha aadka runtii dadku ay uga sheegaynayeen dadka Soomaaliyeed oo cid waliba ay ogeyd waxay ahaayeen arrinta waxaa kow ka ahaa ama qaybaha ka mid ahaa runtii qayb ka mid ahaa arrimaha xajka oo dadku ay culays badan ay ka dareemayeen oo dadka meelo badan ay lacago ku bixinayeen oo dadka Soomaaliyeed ay ku dhibanaayeen runtii kulligeedna soo wada marteen oo ogeedeen oo hadda wax laga sii sheego aanan garanayn. marka waxay nala noqotay in aan isku dayno bal inaan xajka inaan nidaamin karno adeegiisana qurxin karno oo dadka Soomaaliyeed ee dhibka faraha badan markay xagga tagaan hadday noqoto meeshay degayaan hadday noqoto hoteeladay degayaan iyo deegaanada ay degayaan culays ka haysta cuntada isku duubnida dadka Soomaaliyeed xatal iyo isla joogistooda gudashada fariidada xajka oo dee u baahan aqoon iyo dee in axkaamteedii la fuliyo u baahan oo ayadana culays weyn uu ka jiro. dadkii Soomaaliyeed oo kuwa gudaha Sacuudiga ka imanaya iyo kuwii halkan joogay ay isku dhex milmayaan tiradii oo ay ka jirto culays far badan ay ka jirto. markaad isku wada darto waxaa noo muuqatay fawdo aad u weyn oo ka timid deedna marka ugu dambaysa culays weyn oo dhaqaale oo waqti oo maxaan ku dhahaa dhinaca xataa caafimaadka dadka culays weyn ku ah. marka go'aan waxaan qaadanay inaan arrintaas inaan isu taagno oo wax ka qabanno. caqabadaha ugu weyn ee la kulanay wuxuu ahaa isbedel nacaybka. isbedelka aad buu u dhib badan yahay. haddii aad damacdo inaad wax yar dalkan ka beddesho waa inaad dagaal gasho. dagaal culus baad gelaysaa oo aad iyo aad u dhib badan. marka aniga madaxweynaha waan tashanay waxaan go'aan ku gaadhnay inaan wadaad ka difaacno iyo kooxdiisa. isagana waxaan ku nidhi shaqee annaguna waan ku difaacayna. marka dadkii runtii siyaasiyiintu oo culays la soo saaray xildhibaan cararaya oo dhagaha laga soo garaacay oo cadaaban oo beeshiisii ay cayrsanayso oo nin waxaan ka shaqaysan jiray oo xoogaa yar haysta markaa intuu beeshii qada u soo sameeyey uu dabada ka soo qandhuftay yidhi ninkan ama gabadhan maxay baarlamaanka inoogu jirtaa haddayna waxaan soo qabanayn. qofkii oo indhuhu casaadeen oo tacbaana oo xildhibaankii oo cadaaban baa ku imanaya kusoo gelaya. ma dhici karto see waxaas loo samaynaya. marka waar xildhibaan waa meesha waa lagu tartamay tartanka tartan baa jira Soomaali baa bannahay waynu isnaqaanaa
tartan ma jiro hoosta laga wada taabtay tartan ma jiro wixii waxba kama jiro Sheekh Mukhtaar ninkaasaan kuu soo dirnay ninka balmeelaha u fur markii dambe xildhibaanadii waxay sameeyeen inay dadka intay kaxeeyaan u geeyaan oo dhahan meesha hala furo oo dibna markii systemka loo furo dadkii dee in badan oo ka mid yahay ay dhahaan dee waa run laakiin oo in si kala la yeelo waxaa suurtagal mahe caqabad aad u weynaa naga qabsatay ma aha markaan runta ka hadlo markay timaado arrimaha noocaas oo kale ay interestiga xoolaha Soomaalidu sheekha iyo culimada iyo caamadu waa isku wada mid anaga wadaadada noogu darnaa dadka xajka ka shaqeynayna oo hawlaha ka shaqeysanayna si bay ama culimo u ahaayeen ama culimada ugu ekaadeen rasuulil amiin wa aalihi wa sahbihi ajmaciin dhammaan ra'iisul wasaaraha qaranka mudane Xamse Cabdi Barre wasiirada wasiir ku-xigeenada xildhibaanada labada gole odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka iyo dhammaan shirkadaha bixiya adeega xajka iyo xamladahooda waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudane ra'iisul wasaare mudanayaal iyo marwooyin wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka waxaa guul iyo farxad u ah inay idinku soo dhaweyso munaasabadan qiimaha badan ee ujeedkeedu yahay xiritaanka xajka sanadkii hore 1446 iyo daahfurka xajka iyo shaacinta qiimaha lagu xajin doono sanadkan 1447 mudane ra'iisul wasaare mudanayaal marwooyin munaasabadani waxay ku soo aaday iyadoo wasaaraddu ay u qabsoomeen guulo waaweyn sida horumarinta adeegyada xujayda Soomaaliyeed iyadoo arrintaasna ay wasaaraddu ku mutaysatay inuu dalkeenu ku guuleysto abaalmarinta Labbaytum ee dawladda Sacuudiga ay ku qiimeyso ku tartamida habsami u gudashada adeega xujayda dhammaan dalalka dunida oo ay ku guuleysatay xujayda waxayna wasaaraddu ka gashay kaalinka afaraad iyadoo ka duuleysa amarkii madaxweynaha ee ahaa in wasaaradda looga fadhiyo xaj qiimo jaban adeegiisuna sareeyo sidoo kale maantadan la joogo oo caawa halkaan aan fadhino waxaa diyaarsan oo la soo kireeyay teendhooyinkii Mina iyo Carafa iyo hoteeladii ay degi lahaayeen xujayda Soomaaliyeed Maka iyo Madiina ee sanadkan oo ka hormarsan sanadkii hore iyadoo aad ka arki doontaan muuqaal yar oo guud ahaan soo koobi doona marxaladihii uu soo maray xajka 4 sano ee ay jirtay xukuumadda dan qaran iyo sidoo kale khudbada wasiirka oo faahfaahsan mudane ra'iisul wasaare mudanayaal marwooyin guulaha wasaaraddu ay gaartay waxaa ka mid ah inay dhistay xarunta dhexe ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka oo ka kooban 6 dabaq taasoo ka dhigan in wasaaradda awqaafta ay si madax bannaan u yeelatay xarun dhexe markii ugu horeysay 65 sano oo ay jirtay madax bannaanida dawladnimada Soomaaliyeed alle ka sokow taasna waxaa ammaanteeda iska leh xukuumadda dan qaran ee aad adigu ra'iisul wasaaraheeda tahay iyo wasiirka wasaaradda Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur sidoo kale wasaaraddu waxay dhawaan bilaabi doontaa oo kontaraadkeedana la bixiyay dhismaha xarunta dhexe ee golaha culimada Soomaaliyeed ee loo yaqaan Daarul Iftaa mudane ra'iisul wasaare mudanayaal marwooyin wasaaradda awqaafta waxay hadda ku howlan tahay ama ay bilowday diiwaangelinta dugsiyada Quraanka dalka waxaana miiska saaran oo shaqo laga hayaa siyaasadii iyo habraacyadii lagu hagi lahaa dugsiyada Quraanka iyo horumarintooda dhanka kale waxay wasaaraddu ay bilowday diiwaangelinta masaajidda gobolka Banaadir iyadoo qorshuhu uu yahay in dalka oo dhan laga diiwaangeliyo si loo mideeyo waqtiyada aadaanka salaada khudbadaha iyo horumarinta aqoonta mu'adiniinta iyo imaamyada masaajidda mudane ra'iisul wasaare mudanayaal marwooyin wasaaradda waxaa u qorshaysan sanadkan inay howlgeliso diiwaanka zakada dhismaha golaha culimada Soomaaliyeed oo labaduba xeerarkooda u hor yaallo golaha baarlamaanka Soomaaliyeed iyadoo diiwaanka zakada iyo waqafka si gaar ah muhiim ugu yahay ka qayb qaadashada isku filnaanshaha dhaqaale ee bulshadeena iyo shaqo abuurka ay u baahan yihiin dhalinta Soomaaliyeed mudane ra'iisul wasaare mudanayaal marwooyin iyadoo intaas oo guulo ah ee aan soo sheegnay iyo kuwa kale oo tiro badan ay wasaaraddu ku tallaabsatay haddana wasaaraddu ka mid ma aha wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda ee fuliya
mashaariicda boqolaalka malaayiin dollar ku kacaya ee taageerada ka hela hay'adaha caalamiga ah, taasoo micnaheedu tahay in wasaaraddu ay ku yar tahay taageerada caalamiga ah, balse sida ay u taageero caalami yar tahay haddana aysan u tallaabsi xumayn